12 Agoosto sanad kasta waxaa la xusaa maalinta dhalinyarada adduunka iyadoo la soo bandhigo horumarada iyo caqabadaha dhalinyarada haysto sidoo kale dhiirigelin loo sameeyo sanad waliba waxa uu leeyahay halkudhigyo loogu talagalay halkudhiga sanadkan ayaa waxa uu ahaa xirfadsiinta dhalinyarada munaasabadan lagu xuseeyay maalintan oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka soo qaybgalay mas'uuliyiin kala duwan sida wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada Jubbaland wasiirka xogeenka wasaaradda dhalinyarada agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada Jubbaland iyo wasiirro iyo xildhibaano kale inta ay socotay munaasabada ayaa waxay dhalinyarada degmada Kismaayo soo bandhigeen xirfado kala duwan kuwaas oo ah kuwa dhiirigelin sidoo kale ciyaaro tartan ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay madasha ayaa waxay ka jeediyeen qodobada kala duwan kuwaas oo wax ku ool ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Kismaayo Abaadir Cabdiraxmaan Beeshi ayaa ka hadlay muhiimadda munaasabadan maanta kulankan wuxuu daaran yahay waxaan dareemaynaa kulligeenba waxaa halkaa fadhiya dhalinyarada quruxda badan maalintoodii inay tahay maalintii dhalinyarada adduunka ee 12 Agoosto waxaan rabaa marka dhalinyarada adduunka oo dhan meel walba ay joogaan inaan u diro hambalyo si qaas ah dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah kuweena Jubbaland waxaan leeyahay marka dhalinyarooy hambalyo meel walba ay joogtaan maanta waa maalinteeni agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland Axmed Faarax Cali Aways ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay inay xoojiyaan hal abuurkooda iyo xirfadaha halkudhiga sanadkan wuxuu yahay xirfadsiinta dhalinyarada in dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba maadaama wadankeenu uu burburay haddana uu dib u dhas iyo dib u kac ku soo jiro waxay noqonaysaa in dadka dhalinyarada ma wada aha dadku inay wada xafiis wada fariistaan ama ay shaar wada cadaadaan sax maaha waa in qaarba dhinac u leexdaan meesha kaliya ee dhalinyaradu uga bixi karaan shaqo la'aanta iyo duruufaha jirana waa inay xirfad helaan si ay shaqo kasta oo wadanka looga baahdo u qabtaan maadaama wadanku uu yahay wadan burburay oo dib u kabasho iyo dib u dhis ku jira nooc kastaba ha ahaadeen xagga dhismaha haday noqoto xagga dawladnimada haday noqoto xagga dadnimada haday noqoto xagga caqiidiyan haday noqoto dhinac walba wadanku dib u dhis buu ku jiraa maadaama uu hore u burburay dib u dhisna uu ku jiro waxa muhiim ah oo laga maarmaan ah in dadka dhalinyarada la baro xirfadihii ay kala duwanaa ee ay ku shaqaysan lahaayeen wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Naaji Cabdullaahi ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan xirfadaha ay barteen sidoo kale ay kor u qaadaan xirfadaha la barto mar walba dhalinyarada waxa muhiim ah inay ka faa'iideystaan skills iyo knowledge ay faa'iideystaan ay u faa'iideeyaan bulshada dhexdeeda xildhibaan Foos Cali Cabdiraxmaan oo ah xogayaha guddiga dhalinyarada ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhalinyaradu ku amaantay xirfadaha ay soo saarayaan waxaan filayaa dhalinyaradena inay noqdaan haddaba ay yihiin hormuudka nabadda ay noqdaan kuwii ka shaqeyn lahaa maadaama ay yihiin markii hore waxaa la dhihi jiray dhalinyarada waxa waaye mustaqbalka berri ayaa la dhihi jiray laakiin waa mustaqbalka maanta waxaan rajaynayaa dadaalka ay hadda hayaan inay ka sii ballaariyaan wasiirka xogeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland Ibrahim Maxamed Qooshow ayaa dhalinyarada u ballan qaaday inay wasaaradda ay u sameyn doonto shaqo abuur waxaan ballan qaadaynaa insha Allah wasaaradda shaqada shaqaalaha hadaan nahay dhalinyarada si shaqo abuur loogu sameyn lahaa maanta wasaaradda shirba ka socdo waxa looga hadlayay sida dhalinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa wasiirka xogeenka wasaaradda dhalinyarada Jubbaland Faatuma Macalin Cali ayaa dhankeeda dhalinyarada ugu hambalyeysay maalinta dhalinyarada adduunka sidoo kale ka sheekaysay xirfadaha la baray dhalinyarada iyo sida ay muhiim u yihiin inaga hadan Soomaaliyeed maalin kasta waxay noo tahay maalinta dhalinyarada sababtoo ah dadkeena majority-gooda dhalinyaro waaye maantana way nooga sii duwan tahay maalmihii hore ee aan xusi jirnay maalinta dhalinyarada sababtoo ah maanta waxaan ku soo bandhigaynaa waxa waa cududeena ka dhalinyaro ahaan iyo xirfadeena halkudhiga maanta waxa waaye xirfadsiinta dhalinyarada ee dhulkeena uu nagu filan yahay xirfadsiinta dhalinyarada waxay ka turjumaysaa baahiyaha dhalinyarada kala duwan
meeshan waxaa ku jooga dhalinyaro loo tababaray farsamooyin kala duwan sida tubiste ganacsiga oo loo sameynayo walibana business start farsamaha farshaxanka oo qaybihiisa kala duwan leh korontada cunno karinta iyo xirfadaha khayraadka badda iyo kalluumaysiga. Abshira Cabdirashiid Xuseen, Jubaland TV, Kismaayo.